mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale waxaan halkan salaan iyo hambalyo uga soo gudbinayaa dadweynaha sharafta leh ee rag iyo haweenba leh dhalinyaro leh ee isku soo xilqaamay caawa waqtigooda qaaliga inay soo siiyaan inay ka qayb qaataan taageerada naftooda taas oo ku jirta halganka iyo horumarinta maamul goboleedka Awdal State ee Soomaaliyeed waxa kale oo halkan aan salaan aad u qaaliya uga gudbinayaa dadweynaha aad u ballaaran ee ku dhaqan dalka Holland ama Netherlands oo xalay si aad iyo aad u qaaya badan u muujiyay dareenkooga si buuxdana isku daba taagay sidii ay looga midhayn lahaa ama ay u hana qaadi lahayd maamul goboleedka Awdal State shacabka Hollandna waxaan leeyahay noolaada waara ujeedadiina waad gaari doontaan insha Allah taala sidoo kale halkan waxaan salaan uga dirayaa hambalyo iyo bogaadin madaxweynaha dawladda federaaliga ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale waxaan halkan salaan uga dirayaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya loo magacaabay maanta mudane Cabdi Faarax Shirdoon oo Ilaahay aan ka filayo inuu maaragtay u fuudeeyo mas'uuliyadda culus ee maanta loo xil saaray sidoo kale waxaan salaan qaali halkan uga dirayaa gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ku xigeenadiisa iyo dhammaan xubnaha baarlamaanka iyagana waxaan Ilaahay uga rajaynayaa in shacabka ummadda Soomaaliyeed ay ku hoggaamiyaan sinaan iyo cadaalad equality and justice caawa halkan safar dheer baan soo galay waan sii dheeraan doonaa waan sii socon doonaa insha Allah taala ujeedada safarkayguna waxa weeye mustaqbalka iyo nolosha shacabka reer Awdal in ay wax ka bedesho xaaladda maanta ay ku sugan yihiin socdaalkaygu sidaas ayuu u dhigan yahay xaqiiqada marka dib loogu noqdo marka ujeedooyinka safarkaygani waxaan u qaadi karaa 4 1 2 3 4 A B C D number 1 ujeedada socdaalka hadda wuxuu la xiriiraa socdaalkii hore u jiray ee aan hore u sameynay bishii January ee sanadkan aynu ku jirro kaasoo ahaa safar siyaasadeed maantana waa safar siyaasadeed weey siyaasaddu way isbedeshaa laakiin mar walba baahida siyaasadeed waa mid ku xidhan nolosha beesha ama nolosha aadamaha thank you siyaasaddu sideedaba waa mid aadamuhu u baahan yahay oo u hoggaamisa ama u iftiimisa nolol wanaagsan oo beeshu ay ku gaadho horumar dhinac walba leh ha noqoto nabadgelyada ha noqoto dhaqaalaha ha noqoto caafimaadka iyo ha noqoto arrimaha kale ee bulshada intaba qodobkayga labaad waxa weeye muhiimadda tagista xamar maxaynu u tagaynaa xamar maanta oo Muqdisho shacabka reer Awdal maanta maxaa ka yaala kow marka ugu horeysa waa meesha siyaasadda Soomaaliya laga sargooyaa waa Muqdisho ama waa xamar marka shacabka reer Awdal mar walba waa laga maarmaan inay goobjoog ka ahaadaan waxa ka dhacaya magaalada madaxda dalka waxaynu ognahay in isbedel siyaasadeed iyo mid qaanuuni labadiba uu ka dhacay Soomaaliya maanta taa lafteeda waxa laga maarmaan shacabka reer Awdal in ay qaybtooda ka qaataan sidaas darteed waa muhiim in la tago Muqdisho lala fariisto madaxda cusub ee qaranka lana weydiiyo in ay dhaqan geliyaan dastuurka loo ansixiyay ummadda federaaliga ee Soomaaliyeed oo miiskan iga dambeeya saaran gobolkeenu wuxuu ka mid yahay gobolada 18 gobol ee Soomaaliyeed mas'uuliyiinta cusub ee Soomaaliya
waxa waajib ka saaran yahay qof kasta oo reer awdal oo ku nool laga soo bilaabo Lowyacado ilaa Hargeysa in ay mas'uul ka noqdaan oo ay damaanad qaadaan xuquuqahooda kala duwan oo ay ugu horeyso nabadgelyadu sidaa darteed waa inaan aragno aan la fadhiisano aan weydiino ajandaha ay u hayaan shacabka reer awdal waxaynu wada ogsoonahay haddii aad dib u fiiriso qodobka 7aad ee dastuurku waxa uu ka hadlayaa qaabka iyo habka loo yegleelayo maamul goboleedyada arrinta ugu muhiimsan markii aan akhriyay waxa weeye ee laga rabaa shuruudaha gobolka waxa ay laba gobol wixii ka badan shacabka reer awdal waa inay ogaadaan inay degan hal gobol kaliya ee ay degan yihiin laba gobol qof kasta reer awdal taas waa inuu maskaxda geliyaan oo mid xaqiiqa oo jirta awdal waan degannahay waqooyi galbeedna waan degannahay walaalayaal taaka sokow arrin muhiim ah ayaa jirta oo qodobku uu tilmaamayo 7aad oo uu leeyahay maamul goboleedka waxyaabaha lagu ogolaan karo ama lagu soo dhaweyn karo waxa kamid ah gobolku marka hore inuu dhaqaale ahaan isku filan yahay aqoon ahaana isku filan yahay marka gobolka awdal waa gobolka ugu dhaqaalaha badan leh ugu khayraadka badan leh Soomaaliya waa gobolka ugu aqoonta badan leh Soomaaliya waa gobolka ugu dhoofinta badan aqoonta Soomaaliya weeye magaranaysaa gobolka awdal ee inagu aynu ka soo jeedna hadaynu nahay bahda reer awdal marka sidaa daraadeed waa laga maarmaan waa la mataabtaan gorgortana ma geli karo maamul goboleedka awdal state inuu cid kale aayihiisa iyo mustaqbalka caruurtooda inay u daba fadhiistaan cidna laga yeeli maayo sharciguna ma tilmaamayo walaalayaal taa haddii aan intaa kaga gudbo waa tegitaanka xamar weeye waxa kaloo aan u sii gudbi doonaa Kenya iyo Ethiopia haddii ilaahay idmo muhiimadda Ethiopia u leedahay maxay tahay marka maamul goboleedka awdal state number 1 waxa weeye dad fara badan oo reer awdal ayaa Ethiopian oo ku nool Ethiopia oo noognahay jigjiga ilaa iyo magaranaysaa ilaa Gorayo Cawl inta u dhaxaysa ilaa Diridhabe shacab originally ka soo jeeda maamulka awdal state ayaa ku nool iyaga laftooda waxa loo baahan yahay in la arko lala sheekaysto magaranaysaa aayaha iyo mustaqbalka shacabka reer awdal guud ahaan meeshii doonaba ku noolaade in la isla meel dhigo oo la yeesho meel kaliya oo loo wada jeedo oo la sugo midnimada shacabka ummadda reer awdal number 2 waxa weeye Ethiopia waa dal aad u weyn oo siyaasadda geeska Afrika gacanta ku haya waa laga maarmaan in magaranaysaa maamulka awdal state uu xiriir wanaagsan oo saaxiibtinimo oo wada qabsi iyo mid dhaqaale inuu la yeesho waa loo baahan yahay midda saddexaad waxay tahay waa dal aynu darisnahay weeye waa 70 milyan oo qof baa ku nool 20 sano soo socota waxa laga yaabaa ilaa 90 milyan ay gaaraan waa dal aan lahayn biyo aan bad lahayn marka waxa loo baahan yahay shacabka reer awdal maamulka awdal state inay hantaan deegaankoogii ay salaxdaan xeebahoogii ay intifaacsadaan wadamada Afrika ee aan xeebaha lahayn marka ay uga faa'iideeyaan in ay wax kala soo dagaan oo ay nolosha u dabciyaan shacabka reer awdal noloshooda magaranaysaa dhaqaale ay kor ugu soo qaadaan oo ay dhistaan deegaanadooda ilaa hadda aan waxba laga qabanin numberka D ama afraad waxaan ka hadlayaa waxa weeye baryahan sidii horeba looga hadlay walaalahay uga hadleen waxaa jira dhulboob aad iyo aad u fool xun oo runtii dadnimada yani shakhsiga aadamiga ah ee lid ku ah ama magaranaysaa aan ka turjumaynin sida nabadda daris wanaagga magaranaysaa wada shaqaynta walaaltinimada isxaq dhowrka waxyaabahaas oo dhan oo looga baahan yahay ummad meel markay ku nooshahay haddii uu yimaado dhulboob oo aad la timaado damac inaad qaadato xaq qof kale u leeyahay dhul dad kale ay leeyihiin haddii aad ku hamido inaad qaadato taa lafteedu wax ay fogaynaysaa magaranaysaa nabadii bay fogaynaysaa waxay dhalinaysaa colaad ujeedada meesha taalaana dhulboobku wax kale ma aha xaqiiqada marka laga hadlo dhulboobkan waxa ku shaqaysanaya ama ka dambeeya maba aha dadka shacabka aan uu sidaan qabo siyaasiyan laakiin maamulka SNM-ta ee ka jira Hargeysa iyaga ayaa ka dambeeya dhul balaarsigan waxaana uga dan leeyihiin in ay systemkan sii dhacaya ee SNM-tu inay ku helaan cimri dheer
oo dadka ay ku wajahaan inay magaranaysa ay dhul boobaan in ay magaranaysa dagaal ku jiheeyaan si maaragtay xaaladoodan siyaasadeed ee sii dumaysa dadku maaragtay aanay isha ugu dhicin marka waa arrin siyaasadeed weeye shacabka reer awdal waxaa loo baahan yahay oo waajib ku ah wiil iyo gabadh aabbe iyo hooyo qof kasta oo ku nool gobolka ama dibadiisaba waxa waajib ku ah inaan isku taagno difaaca dhulkeena hooyo xaq baynu u leenahay sharciga ayaa tilmaamaya mana ogolin 1 centimeter in la soo galo dhulka shacabka awdal marka shacabka reer awdal hay isku taagaan xaqqa istifaaca in ay abalay gareen ama ay dalbadaan taas waa taa walaalayaal waxa kale oo aan halkan ka sheegaya shacabka reer awdal maamulka awdal state wuxuu ku jiraa waa halkan weey halkan ka macnihiisu ma aha in maanta marka wax la abuuro berrito maaragtay magaranaysa inay dhamaadaan ma aha berrito waxa loo baahan yahay waxa weey walaalayaal wax walba tadawur iyo waqti buu baahan yahay halkan ku waqti buu baahan yahay qaar baa qaadanaya 5 sano qaar baa qaadanaya 10 sano qaar baa qaadanaya 20 sano sanad iyo bar ka hor shacabka reer awdal ma lahayn waxa la yiraahdo identity meel ilmaheenu maaragtay uu ku abtirsado ma lahayn maamul goboleedka kale oo Soomaaliyeed baynu u dalbaadaynay oo aynu maaragtay muxuu shacabka u tumaynay maanta shacabka reer awdal iyaga ayaa shacabka isku tumaya iyaga ayaa maamul goboleed leh iyaga ayaa calankan iga dambeeya caruurteena ayaa ku abtirsanaysa shacabka reer awdal waxaan u soo jeedinayaa caawa halkan saddex arrimood baa leedii ka baahan yahay saddex arrimood ayaa leedii ka baahan yahay number 1 hoggaan mid ah number 2 hadaf mid ah number 3 hadal mid ah ayaa leedii ka baahan yahay walaalayaal journalka halka yaalo waxa la yiraahdaa The Ottawa Citizen newspaper waxa journalka la furay 1847 1847 ayaa la abuuray journalkaas front page-ka waad aragtaan journalada waxa ku soo baxa front page-ka waxa weeye waa artikalada ugu qiimaha badan leh gobol walba iyo waddan walba ayaa wax walba marka qorraxda soo baxda la soo saara halka waxa ku qoran waad arkaysaan walaalayaal waa journalka ugu weyn weeye dalka Canada wuxuu ka hadlayaa walaalayaal Awdal State buu ka hadlayaa waan ka shaqaynay waan geynay waka front page-kii buu ku dhagan yahay waxa la weydiiyay how many million dollars baad ka bixiseen bay ayna yiraahdeen odayaal reer Awdal I didn't pay anything I pay zero waa journalkan halkan ka shaqeeyo weeye wala caawiyay muddo badan bay ugu qaadatay ugu dambeyntii waan ku soo baxnay dareenkaaga caaw ku aadan munaasabadan soo qabanqaabiseen wallahi dareenkaygu dareen la soo koobi kara maaha aad si fiican baan u soo dhaweynay madaxweynaha Awdal State madaxweynahayaga waxa kale oo aad ugu faraxsanahay dawladda ka dhalatay Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee maanta la magacaabay annagoo hambaliya leh waliba waxaan halkan akhbaar gaar ah u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed koonfur iyo waqooyi kuwa jooga maanta jiilka la sugaya inay Soomaaliya wax ka bedelaan oo wax ka qabtaan waa dhalinyarta dhiigooga ku daadanayo khasaaraha iyo faa'iido la'aanta waxaan hawada u marin lahaa in dhalinyartu ku xisaabtanto in dawladda yeelato future-ka ummadda Soomaaliyeed iskugu timaado oo dawladda maanta Soomaaliya ka dhalatay ay caawiyaan ay garab joogsadaan oo wixii ay dhiyo khasaaro ah oo ummaddeena Soomaaliyeed 20 sano ay dhiigooga ku soo daadanayay khasaaro iyo macna la'aan oo ku weynay daayarteeni oo maanta dadkii jaamacadaha ka bixi lahaa waddankeena hogaamin lahaa ay dhulka hoosta ka mareen oo dhiigooga dhulka ku jira oo wali qoyan yahay marka waxaan oran lahaa inta dambe ha la daba qabto dawladda Soomaaliyeed waxaan oran lahaa ummadda Soomaaliyeed ha dhageysato hana caawiso waxaan ku rajaynaynaa insha Allah inay noqon doonto dawladdii ka saarta Soomaaliya wax badan bay ku soo jirtay ku meelgad inay noqoto dawlad federaal ah oo ummadda Soomaaliyeed mid u tahay oo ummadda Soomaaliyeed xuquuqdeedii soo celisa qof kasta Soomaaliyeed waxaan ku waaninayaa inuu dawladda Soomaaliya taageero la iskarab istaago oo maanta wax ku noqon karno inaan dawladdeena ku xisaabtano inaynu ku xisaabtamin adduunka hadaa dawladdaada ku xisaabtami weyday adduunka waxba ka noqon maysid laakiin hadaa dawladdaada ku xisaabtay adduunka wax ka noqonaysa magacaaguna uu jiraya marka insha Allah waxaan leeyahay magaciisa Soomaaliyeed soo celiyo iyo dawladnimadeena insha Allah waana mahadsantihiin